waxaa jirta dhulka dusha ayuu yaalaaba dahabka. dadka meeshay ku dul socdaan ayaa dahabka u yaalaa. waxaa lagula soo bixi karaa qaab artisanal yar, qof isxilqaamay oo makiinadii dahabka sheegaysa gold detectorki soo qaatay oo dhulka markay dhahdo meeshaan la ii fiiri saas intuu qodo gabal yaro dahab la soo baxaya. maxay Soomaalidu khayraadkeeda diiradda saari kartaa oo lacag samayn kartaa? waa shacabka Soomaaliyeed oo tilmaamay midka labaad waa dahab. Soomaaliya 5 sano ama 6 sano hadda ugu dambeysay Soomaaliya dahab laga soo saaray. dhulka lagu dul socdo meelaha qaar buurta caalmada oo kale cirshiida ceyrgaabo u dhow boorame meelo badan waxaa jirta dhulka dusha ayuu yaalaaba dahabka. dadka meeshay ku dul socdaan ayaa dahabka u yaalaa. marka waxaa lagula soo bixi karaa qaab artisanal yar, qof isxilqaamay oo makiinadii dahabka sheegaysa gold detectorki soo qaatay oo dhulka markay dhahdo meeshaan la ii fiiri saas intuu qodo gabal yaro dahab la soo baxaya. sidaas ayaa Soomaalidii markay ku yaaceen cershiida oo cergaabo area caalmadow oo buurta oo magaalo degdeg ku samaysantaa jirta 2015 aan jirin milxal hadda magaalo noqotay dahabka ka dhigay Soomaaliya oo idin qaar shalanbood ka tagay ayaan ku arkay milxo markaan tagay milxo oo dahab laga baaray. actually aniga waa aad iyo aad uga shaqeeyay inaan fiiriyo inaan dadka wajiyo jaamacadda Baranan tagay xataa oo aan ka hadlay sida dahabkaas sida ugu quman loo raadsan karo kale aha. waxay ahayd dawladdii hore Farmaajo markii joogtay ayaan ku mashquulay buurahaas caalmadow ee Sanaag. marka dhinaca kale Soomaaliya laga saaro data ma lahayo tiradiisa iyo tuulada. yes waxaa jirto data aan ka helnay United Arab Emirates, imaaraadka dahabka Soomaaliya laga qaado waxaa laga gadaa imaarada statistically Soomaaliya dahabku ka helay meequu la eg yahay 200 milyan ayaa laga helay. 2 sano ma ahayd, 3 sano ma ahayd, ma aqaan. yaa helay dad artisanal miners ah oo technology fiican adeegsanin, garab rarata ah ayaa heleen. dad iska qoto ceel xoogaa meelahan fagfaagaya nuggetska nooca ah oo dhulka waadiyaasha geesihiisa inta gold detector aad qaadatid kala soo bixaysid waa ka. marka Soomaalidii technologyyaal ay barteenaa jirto oo dahabka ah. karasharka ayagaa suubsada oo jijibinaya dhagaxa uu dahabka ku jiro. karasharkii waa samaystaan. waxaa arkay nin ka yimid shalambood oo karasharada on site milxa ku samaynaya. karasharka waa dhagaxa la dilinaa, dhagaxii budow ka dhiga waa jijibinaya. yaa samaystay gacan Soomaaliyeed, rag iska fahmi karashar siduu u shaqeeyo ayaa oo haddana aan caga badnaynin oo garab rarata ah meesha lagu sameeyaa karasharada. inkastoo karasharada qaarkood China iyo meelo kale laga keeno on site ayaa lagu sameeyaa karasharkii. dahabka kala miiridiisoo kale on site-ka lagu sameeyaa. dahabka dhalaalintiisa markii dhowr dahab aad heshid isku dhalaalin oo bulyan laga dhigaayo oo 1 kiilo ah oo sidii steega sigaarka baakada sigaarka camal ah u samaysan oo dahab ah waa la sameeyaa. intaas process Soomaalida ayaga samaysato. marka wax badan ayaa la fahmay laga soo bilaabo 2000 iyo aan dhaho 15 meelahaas laga soo bilaabo ilaa maantada tan la joogo 9 sano 10 sano 10 sano gudaheed Soomaalidii waxay hantiyeen technology qaarkood warshaday geeyeen. marka cirshiido kale warshad oo small scale ah ayaa ka jirta hadda. Boorame area waa ka jirta. waxay ka jirtaa caalmadow magaalada milxa. marka dahabka annagoo dawladda dhexe iyo dawladda Puntland iyo dawladda Somaliland waxa kamaysa way la socotaa sharciga bixisa waxa. laakiin Puntland buuraha caalmadow ma tagto dawlad ahaan cashuur iyo faragashi iyo samaysto. dadka ayaga waxooda samaysto dahabkooda qaataan markay isku dhalaaliyaan imaaraadii la aadaan 1 kiilo geynayaan. 1 kiilo maanta kale waa 70 iyo xoogaa kun waaye. waa lacagtaas haddana badeeca soo gelinayaan iyadoo badeeca ay Soomaaliya ku soo laabanaysaa. marka dahabkeena wuxuu aadaa imaaraad ayuu aadaa. dahab waa soo saarnaa. waxaa kaloo jirta meelo dahab lagu tuhumay oo Russian report ay sheegayso. waxaa ka mid ah baar dheere waqooyigeeda meel markabley meel u dhow dahab ay leedahay according to the Russian reports. hiiraan bari meel tuulada Aboorey bari ka ah iyo Sooman meel u dhaxayso waa lagu sheegay. reportkaas marka la akhriyo waa arkaysaa
dahab iyo silver iyo waxawaaye iyo platinum ayaa meesha lagu sheegay. waxaa kaloo waa report waxaan akhrina waa la yiri maaha, ogaada waa la yiri maaha, dad ayaa ka shaqeeyey Russian report ku qoran tahay markii shaqada ay qabteen ka bacdi reportkii ku qoray. Another area oo waa Galmudug, oo bartamaha Galmudug meel u dhaxayso waqooyiga baxdo tuulo la dhaho maaragtay Balli Guuleed oo ka bilaabma ilaa lagu tagaayo Eelguula haddana wasiil lagu imaanaya waa triangle camal. That triangle waa the area aan ku qayaasay in dahabkii Soomaaliya ee Galmudug meeshuu yaallo. marka waxay u baahan tahay sidii kii milxo iyo kii cershiida iyo kii boorame area sidaasoo kale in la baaro, dadka ay ku yaacaan, ay baaraan, ay fiiriyaan inay wax ka heli karaan in kale. ka bacdi ayaa shirkado waaweyn la keeni karaa ay dowladdan ka faa'iidi kartaa. Small scale markii la dareemaha